aho shaqaalaha ka aho caamiliinta ah ay markaasina soo weydiiyeen qaabka shaqada dawada tan loo wasaco ama loo tawsiiciyo oo markaasi loo geliyo suuqa oo loo iibsado ayaa su'aashu ay ka timiday marka haddii su'aalahaas markaasi iyo qaabkaas aan u bandhignay kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam إلهي واتوضع فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر شيء هداتكم مرتان إلهي رسول كيس أعلية وهذا مركا إله كتاب الله وسنة رسول الله وآي هدات إيمان ليده نوضع إلهي سبحانه وتعالى مركا هو الرئيسة وحال ولا نقنا يا مرجع وعوي كتابك يا سنة استابك الله يا سنة النبي عليه الصلاة والسلام يا الله نقنا إيا وحي لغا استنباضيو فهم كالدقائق ذا هذي ومعاني القرآن والسنة أيا لولا نقنيا هو فقه إسلام كأيا لولا نقنيا بركة كيفية ذا عملك كان والله يشرحي وانا دقيستي هذا حرفا بحرفنا نلوكو ميريي هذه نلوكو ميرشان شيء والبا وحاو مركاسي مقامك وقلي كرو أيا نفيرني شريعة أن أفيرني ma dhahayo markaasi anigaan ayaa fiirshay anigu ma dhahayo waxaan leeyahay markaasi sharcigi ilaahay iyo culimada islaamka ijtihaadkoodii iyo fuqahadii iyo wixii markaasi diintiisay noo soo gaarto aan u baranay ayaanu ka turjumaynaa ma ahan markaasi inaan anagu ra'yi aanu sameeyayno oo ra'yi hadda kuma hadlayno oo ra'yi cid walba ayaa iska leh muslim iyo galba ra'yi waa iska leeyihiin ra'yigana waxa weeye markaasi wax ma xalliyo diintuna ra'yiga waa ka sareysaa maxay yiraahdaan diintu ra'yiga ka sareynin ilaahay rasuul soo madiri lahayn oo diintu waxa weeye ra'yi kaligiis kuma filna adduunka marka qaabka markaasi hadda shaygan loo sharaxay marka koow dadka macaamiisha ah oo shirkadda tan ka mid noqonaya qaabka ay ku soo gelayaan oo qaab maartay diiwaan gelis oo lacag la dhiibaayo lacagtaas marka waxa weeye shay lacag hadii la baxsho wixii muqaabal oo lagu bixinayo waa in la helaa shariicada islaamka wax majhuula wax kuma ansaxaan taasna marka waxa jawaabteedii ay noqoto ay uga jawaabeen inay yiraahdeen qofka kan waxa la siinayaa wax barasho inuu shaqo oo maartay loo diro shaqaduna ay tahay qaabkii loo tawsiic ilaahay dawadaas marka tababar ayaa la siinayaa intaas yartaana waxa looga qaadayaa oo waxay noqonaysaa ujratu tacliim waaye tacliimtana in ujro lagu bixiyo waa banaantahay min iskuula dhiganayo min jaamacada dhiganayo min dugsi quraan la dhiganayo qofka wax baranaya in maartay ujro waa bixiyaa qaabkaas marka hore ay tahay suma bacdigeedna waxa weeye dadkii qofkii waxa uu noqonayaa qofka markaasi xiriirka dawadatan dadka gadanaya ayaduna waxay marjic waxa loo sameeyay dabiib inay leedahay oo markaasi dhakhtar mujarraba oo yaqaana inay leedahay oo hadii misalan qofkii gadanaya oo ula soo laabanayo dhakhtarkaas oo ula soo laabanayo aqoonta u leh markaasi waxa weeye oo saas ku gadanayo wixii markaasi ilaahay baa kulli caafimaadka bixiye wixii uu markaasi la jarribay ayaa markaas uu dhakhtarkaas ku ijtihaadaya dawadii uu qorayaa sidaas ayaana marjiceedu yahay qofkaanu hadda asagu meesha bartay wuxuu ka dhigan yahay qof suuqa tagay ee wax ku naadinaya dalaal oo kala weeyay dadka hadda qaabka hadda shirkadda tan loogu shaqeynayo dadku waxa weeye waa dad maartay qaabkii dalaalnimada u shaqeynaya ujratu dalaalna waa banaanta qofka duu dalaal yahay waa ka markaasi meel walba tagay ama suuqa wax ku naadinaya amal sameynaya wax walba isku soo xiraya socod sameynaya عمل هو سمينا جهد بو سمينا وعمل سمينا عمل كاس اشرديس ايونا قادنيا marka hadda intaas oo shaqo hadaad qabato intaas aad leedahay intaas hadaad si qabato intaas aad leedahay intaas hadaad qabato intaas aad leedahay oo heshiis asagana oo maaratay raali uu ku yahay ayaa arintan hadii la isku soo duuduubo saas weey marka hadda qof hadii maaratay uu amal sameynayo amalkiisina shay muqaabal uu leeyahay qofkina uu juhd bixinayo haduu xataa uu dalaal yahay dalaalku waxba ma haysto asagu waxba ma haysto oo wax waliba dalaalku wax ma bixiyo
bixinta marka ugu horeysana hadda sida hadda naloo sheegayo waa shaqadaas oo qofka la baraayo sida uu shaqada u qaba lahaay haddii marka intaas uu bartane leeshi shirkad furan oo qof walba waxa uu ku darsan karo ku darsanayaa wixii uu helo ayuu shirkada ku sii darsanayaa shirkadii uu kamid noqonayaa waa shay iska furan marka haddii aan dhegaysanay qaabka markaasi loo shaqeeyo qaab hadda markaasi baabu ribo gelayna ma aha hay ribo waxa weeye waa ziyaado ribadu waa afar qaybood waaye ribada hadda Soomaaliya ugu badan oo ganacsatada aad iyo aad maartay Ilaahay ka cafiye ugu badan oo xoolahooda dhibaatada gaarsiinaya waa ribada la yiraahdo ribal qardi waxa suuqda ku badan sidaan ognahay dadka alaabaha qaata beecan markaasi waxa weeye oo furan dadka alaabaha qaata dadka dibadaha ka keenay midaa ka sii qaadayo midaa dukaanka suuq bakaarka geynaya dada ka sii qaadanaya waa tawsiicinaya wixii baan soo gadaya intaasaan ka macaashaya adigana wixii markaasi adigu siisan ku keenaa uu leeyahay waxa dhacaysa marka inuu hadii shaygan 100 uu joogo markii markaas uusan lacagta uusan horay ka dhiibaynin uusan kaash ahaan u bixinaynin waxay u badan tahay Soomaalida wax ganacsata inay hadoo qofkii kaash ku dhiibayna lacag yar laga siiyo qofkii gadaal ka keenayo deynsanay ee gadaal ka keenayeen in loo ziyaadiyo taas xaraam weey wal qardi yaa leeyahay nabi wuxuu dhahay alayhi salaam kullu qardin jarra naf'an fa huwa riban deyn kasta oo soo jiidaysa nafci soo jiidaysa ribay noqonaysaa sababtoo qofkaanu deyn ma bixiyay deyntii waxay u soo jiidaa nafci maxaa yeelay hadeer haduu shayga kan iibsalahay wuxuu ku iibsalahay wax ka badan ayuu qofkan ku siinayaa ziyaadadaas markaas oo nafci ka dhigtay ribay noqonaysaa xaraam weey waa mid ku badan suuqda iyo ganacsatada ku baxan Ilaahay ka cafiyeegan inay ka soo noqdaan loo baahan marka de waxa weeye shay walbana waxa la rabaa aasaaskooda shariicada islaamka in lagu dhiso dadkuna dad muslimiina weeye waxa la rabaa in dadka culimada lala tashado dadka diinta yaqaan oo fuqahada gaar ahaan in lala tashado waxa waaye cilmiga furuucda waxaanu gelayaan waxa dhici karta waxyaabo masaa'il niqaada oo maartay ama daqaa'iqul masaa'il inay soo gashaa dhici karta in markaasi waxa weeye lala soco kala loo baahan yahay marka waxaan leenahay qaabka shaqadaas ah oo nidaamkaas ah wax walbana sidoo nidaam iska leeyahay qofku gugiisa haduu ku nool yahay hatta nidaam uu kula nool yahay qaab musqu shaqaabo u galaa qaab uu ugu nool yahay guriga qaaba loo seexdaa caruurtu meelay seexataa haweenku dadku meelay seexdaan odaygu meeluu seexdaa nidaamkaas marka hadii la isku kharibo kullayba jiif waa iska jiif leeyahay cid walba meel walba ay tagto nidaamku waa qarib maayo laakiin wax markaas shariicadina dimbi lagu gelay ma marka shay walba hadii nidaamkii la qaribane dadkii dhibaatay ku noqonaysa marka waxa la rabaa shay walba nidaam uu la imaanaya hadii adduunkuna mar walba waa soconaya caalamku waa soconaya wax kasta waa jiraya marka waxa la rabaa shay ka soo yimaada in marjiciisa la fiiro insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in markaas waxa weeye arintan waxba aysan ku jirin oo hadda shariicada sideeda hadii lagu wado oo wax kale ziyaada aan lagu soo dirin inay maartay ay wanaagsan tahay qaabkaasna hadda qaab qoraal ah oo weeyay marka dawaasa iska soo duuduubnay maxaa yeela shay fa shay ana hadda markaas noo kaga warbixiyay waana dhageysanay warqadii hadda nidaamkaas ku qoray ama xeerkaas loo sameeyay oo ku qorayna waana hortaala marka hadda anagu hadda fahamkeena Ilaahay uu naga siiyay kitaabka iyo sunnada iyo fiqhiga iyo aanu wadan maartay la fiirino waxa weeye markaas wax dhibaato ah oo arintaas ku jira ma jiraan waxaana la rabaa qaabka habda wax loo sheegay wax kala haday ku soo hoos baxaan oo qaladane kulli qofku markaas ka shaqeeyo ay iska leedahay dadka muslimiinta ah oo meel walba shirkadaanu ay maartay ka jirtane dad badan oo aqoon lahaa jira marka waxa la rabaa in culimada la ogeysiiyo shariicada loo bandhigo qof kasta talaabta uu qaadayna uu ku qaado kitaabkii sunnada Ilaahay isagoo markaas waxa weeye ku dhaqaaqaaya oo isku ilaalinaya sharcigu asagaana ilaalinaya anagu ma ilaalinaya anagu asagu waana ilaalinaya laakiin markaan asaga ilaalino weey marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa Soomaalida dhamaanteeda dadka shaqaysta oo amalka iskale inay laftirkoodu shariicada u bandhigaan oo wax xalaal la xumo
هدي قيامه وحوي هدي شيء مارتيا كل جسم نبت من حرام والنبي فالنار أولى به جيرك سو كسور دشه شيء حرامه نارا كهبون ودا رسولك عليه الصلاه والسلام والعياذ بالله تعالى waxa marka lagu noolaanayo waxba ma ahane waa in la iska fiiriyaa marka dadka akhyaartiinaan aad iyo aad u mahadsantiin waxaad ku dadaasheen inaad maaragtay shaqana aad heshiin kasabku aad iyo aad u fiican yahay oo waxa weeye maaragtay ambiyada ilaahay shaqaysan jirtay nabiyullaahi daawud maaragtay waa tuu shaqaysan jiray oo ilaahay wa alana lahu alhadiida an i'mal sabiqatin wa qadir fi sirdi wa'malu sa'u dhahay nabi zakariya najaar oo ahay waa tuu rasuulka alayhi salatu wasalaam dhahay rasuulkeena alayhi salatu wasalaam markuu yaray waa kii ariga ilaali jiray nabiyullaahi muusa sidoo kale intooda ahay waa tii 10 sano oo maaragtay la kiraystay oo iri uu ilaalinayay maaragtay reerkii gabadha siiyay oo iriga uu ilaalinayay oo intaas loogaga dhigay marka saas waayo shaqadu sharaf weeye qof kasta duu kasab u dhaqaaqo wadankaas horumar iyo sharaf uu gaaraya isku dulnoolaasho iyo wax dhacow iyo tuuganimo iyo shaxaatanimo iyo wax faa'iido ma waxaan reebay way arintaas marka insha Allah ta'ala waxa laga yaabaa dad badan oo muslimiin ah masaakiin ah fuqara ah waxba aanan haysanin inay shaqo ka helaan shaqada haday ka helayaan shaqada inay shariicada fiiriyaan waa laga maarmaan marka wixii markaasi wanaagsan oo shariicada ku wanaagsan oo ku soo kordhaya wadanka looga shaqaysan karo oo mubaax shay wanaagsan weeye marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in arintaas maaragtay culimada islaamkuna isku raaci doonto shay wanaagana ay tahay qofkii rabana markaas oo sharaxaad ka rabana wuxuu iimaanaya culimaahu hadda markaasi doonay inuu si ogaado ama cid kale soo ogaado maamulka iyo dadka markaasi waxa weeye nambaradaas haaya ka saxdo laakiin anaga markaan dhageysanay waxa hadda markaasi amalkaas u dhibaato u leeyahay ma jirto waxayna ay cuskanta dhanka xagga dalaalnimada weeye wax uu maaragtay dalaalnimo ah waxa weeye qofka intaas oo dad keento waxa weeye wixina dadka laga qaadan maayo shirkadu iyada maaragtay tasarrufaadkeeda leh oo qof shaqeeyo waayo markaasi mushaarkiisa la siinayo oo intaas dad qabato intaas aad leedahay intaas marka qofku kasabkiisu cuno waayo qofkuna kasabkiisu waa u banaan yahay waa maaragtay kasabku waxa waaye waxa uu wanaagsan waayo marka qofkaas ka shaqeynaayo qof kasabkiisa cunayo waayo qof xataa mushaar qaata ma aha waxa weeye wixii uu soo saaro oo kasabkiisa ku helo nin maanta mesela basuuqa sigayo dhagax ka shaqeynaya ama maaragtay guri dhisaaya ama waxa weeye wax gedaaya ama wax xamaalaya war intaas oo alaab hadaa dajisa intaas aad leedahay la yiri intii qaatay kii intii ka yar sameeyeen hadba intii uu markaas la yimiday oo qaadanayo oo ala xasabi amalihi wax ku qaata sidaas aad kulay sharaxaadu saasay ay tahay sida noo sheegay marka waxaas wax dhibaato ma laha ilaahay idankiisa ilaahay ana tahriim iyo tahliil Allah iskale ilaahayna wuxuu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadiba hada halal wa hada haram litaftaru ala Allah alkadiba ilaahay inuu been abuurtana tahliil iyo tahriim rabbul izza iskale waxaan waa haram wax sahlan ma waxaan waa halal oon halal ahayna wax sahlan ma aha qofna wax ma xarimo qofna wax ma tahliil iyo tahriim shariica iskale wa anagu waa ka turjumayna marka waana dhici kartaa qofku in fahamkiisu inaan gifnana waa dhici kartaa